markana dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha iyo axmed faarax cali idaaja. waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o a-da iyo qaybtii afraad sheekadii waasuge iyo warsame sodcaalkii 30 maalmood qalinkii allaha u naxariistee xuseen sheekh axmed kadare. laba xidigle dirir iyo oday warsame oo walaalkiisa isaga dartiisna mudug uga soo sodcaalay goor subaxa waa kuwii iska helay dabadeedna iska soo raacay dugsiga tababarka xalane oo sarkaalku uu ka howlgalo. waxay socod yeeshee ka hayaanba waxay yimaadeen aqalkii dirir oo ku yaal xaafadda howlwadaag. dirir wuxuu qabaa haweenay aad u wanaagsan, magaceedana deeqa la yidhaahdo. deeqi waa afar reerkeeda ka adag oo raggeeda u garab ah. wuxuu dadku u aqoonsan yahay inaan lagu gaarin edab iyo aqool wanaag. inta hoos u sii taqaanayse waxay ku dhaliilaan inay si xad dhaaf ah ilmaha u disho marka ay canaananayso. warsame markuu 2 maalmood nastay ayuu subaxdii dambe wuxuu aaday nin kale oo ay walaala yihiin, lagase wanaagsan yahay, dadkuna ay ku tilmaamaan inuusan xilkas ahayn. intii uu sii socday duqu wuxuu niyadda uga tallamayay tolow maxaad maanta kala kulmi doontaa ninkii asaga ahaa. laakiin khayrsaadsigiisa ayaa badnaayo wuxuu duqu maalintaa walaalkii ka sugayey deeqsinimo aan hore loogu aqoon, maxaa yeelay muddo dheer ayay ismoogaayeen. warsame wuxuu intaa niyadda uga sii luuqaynayay baydadkii ugu dambeeyey gabaygii uu sayid maxamed u tirshay markuu u yimid in cabdi garaad yuusuf oo aabbihiis uu horay abaal ugu galay, kuwaasoo ahaa alaakoosha oo wiilku yuu agab la-aan sheegan afka wuxuu ka doono iyo wuxuu uur ka raba siiya ninkii loo axsaan farahayaba iniq u dheereey. galabtii dambe markuu duqii soo laabtay ayuu dirir wuxuu weydiiyey wuxuu kala kulmay ninkii walaalkood ahaa. warsame wuxuu gox horta ka furfurtay ku toranayaa aqalka bannaankiisa, dirirna agtiisa ayuu kabihii askarta ku casaysanayaa. markaas buu warsame su-aashii walaalkii kaga jawaabay gabaygii xaaji aadan afqallooce ahaa ninkii uurka kaa neceb wejiga waad ka aragtaaye agmarkiyo daymadaba waa lagu ogaadaaye inkastuu akhwaan kula yahay ood uur la tahay hooyo, axmaqu waa cadowgaa hadduu aabbahaa dhalo. dirir si wanaagsan ayuu u gartay inuusan warsame xoolo iyo xushmad midna ninkii isaga ahaa ka soo helin. umuurtaana lama yaabin, maxaa yeelay hore ayuu u malaynayay. intaa kadib waxay galeen sheeko kale. dirir ayaana wuxuu walaalkii warsame u sheegay inuu damacsan yahay in qur-aan loo akhriyo, maxaa yeelay dhowaan ayuu ku guulaystay tartan uu xiddi ku qaatay. markaasay isla meel dhigeen nidaamkii iyo wakhtigii qur-aan akhriska, waxayna ku ballameen inay berri subax u jarmaadaan suuqa xoolaha kana soo iibsadaan 2 neef oo ariya. subaxdii markay suuqa aadi lahaayeen ayuu dirir hurdadii ku raagay. warsame ayaa markaa u yeelay gabadh yar oo dirir dhalay, kuna yidhi orodoo aabba soo toosi. haddaba maxay fashay gabadhii yaray? inta garbaha kor u nuuxisay ayay adeerkeed ku tidhi ha noo sheegin. waa weer warsame u cusub oo carruurtu magaalooyinka ka hirgelisay. waxaa hadalkaa maqashay gabadha yar hooyadeed deeqa oo inta soo oroday si xun u dharbaaxday. markaasaa dirirna ku soo toosay oohinteedii. markii xaajadii lala socodsiiyey ayuu dirirna markiisa gabadhii ul u soo qaatay oo laga celceliyey. warsame aad ayuu uga xumaaday gabadha yar ee uu waalidka u yahay dartiina sida xun loogu canaantay. cabbaar ayaa la kala aamusnaa. kadibna deeqa ayaa raggii quraacdii u keentay. quraacdii kadibna waxay isu raaceen suuqa. deeqana waxaa lagala dardaarmay howlihii kale. maalmihii uu warsame xamar joogay waxaa u kordhay aqoon magaalo. wuxuu tegay meelo badan, wuxuuna arkay waxyaalo kala duwan. laakiinse wuxuu mar walba tabsanaa duqii waasuge ahaa oo ayan is arag maalintii ay magaalada soo galeen kadib. warsame wuxuu maalintaas u damac dheeraa
inuu suuqa xoolaha ku arki doono ama war uun uu ka heli doono. waasuge markuu magaalada yimi wuxuu ku degay guri uu leeyahay wiil uu dhalay. waxaa la yidhaahdaa muuse, wuxuuna qabaa haweenay caddaana oo iyadana la yidhaahdo mariya. muuse wuxuu waxbarasho dibadda ugu maqnaa muddo sanooyin ah, isagoo yar ayuuna dalka ka tegi. intaa uu dibadda joogay duruusta waxbarashada ka sokow wuxuu si weyn u dhuuxay nolosha reer galbeedka oo qofnimadiisa saamaysay. muuse wuxuu tare ku gaaray inuu halka ay markaa marayaan kala qabsado. sidaa daraaddeedna xaashadiisu kuma koobnayn jacayl iyo guur ee wuxuu isku qaatay gabadha iyo dhaqankeeda. sidaas ayuuna uga duwanaa ragga kale ee gabdhaha shisheeyaha soo guursaday. muuse wuxuu isku tirsaa nin la socda nolosha casriga ah, wuxuuna ishalmaansiiyaa amaba uu dhaliilaa bulshada uu ka dhashay oo ku hareeraysan iyo dhaqankeeda. sidiisana waa dadka sida fudud u raaca wixii niyaddooda taabta ayagoo aan ka fiirsan ciribtooda dambe. muuse markuu yurub tegey ayaa carabka loogu tiray nolosha casriga ah, dibna uma jilleecin dadka sugaya iyo waxa ay ku sugan yihiin. isaga iyo xaaskiisaba marka aad ficilkooda iyo qowlkooda dhuuxdid waxaad dareemaysaa inay fikrad ahaan isku raacsan yihiin raaricinta dhaqankiisa iyo raacidda midkeeda. muuse wuxuu isu keenay maariya oo ku dhalatay kuna barbaartay dhaqan aan waafaqsanayn midka soomaalida, iyo waasuge oo ah oday 60 jir ah, intaana miyi ku noolaa, dhiiggiisa iyo dhimirkiisuna ay dhaqanka dadkiisa la shaqeeyaan. waasuge markii miyiga loogu soo sheegay in wiilkiisii uu dibadda ka soo guursaday haweenay caddaana, wuxuu mar walba isweydiin jiray, tolow gabadhu sidee u eg tahay? af soomaaliga ma taqaan mase afgaal keliya ayay ku hadashaa? maxaase idinkala qabsan doona haddaad aqalkooda tagto? isagoo sidaa u walaacsan ayuu markii horeba soo aaday reer muuse. wuxuu gurigooda ku soo beegmay muuse iyo mariya oo inta surwaalla gaagaaban qaatay qol loogu talagalay ku ciyaaraya kubadda miiska. markuu albaabka soo joogsaday oo lays wada arkay ayuu xishoo dib ula laabtay oo is yidhi balukaadi intay gabadhu dhar ka xidhanayso. muuse ayaa markaa mariya ku yidhi, qofka ilinka soo joogsaday wuxuu ahaa aabbahay. isla markiina wuu u soo baxay. mariyana way ka soo daba oroday. waasuge ayaa aqalka dibaddiisa loogu wada yimid. markaasaa qof waliba markiisa labada daan ka dhunkaday. nasiib darro, mariya sooma dhar bedelane waxay qabtaa surwaalkii gaabnaa. waxay galabtaasi ahayd markii waasuge ugu yaab iyo amankaag badnayd. markii gurigii la galay oo la kala saraan qaatay ayaa muuse aabbihii ku yidhi, maxaa laguu keenaa oo aad cabbaysaa qabow iyo kulayl aabe? waasuge wuxuu yidhi, wixii aad haysaan ii keena, laakiin waa inuu bun ugu horreeya. markaasay mariya inta oroday duqi u keentay fujaan qaxwo ah. waasuge wuxuu sugayey bunsharuur, laakiin markii qaxwadii loo keenay wuxuu u qaatay in lays yidhi ha ku sii sugo. mariyana waxay is leedahay mar haddaad duqii qaxwo siisay waxaa markaa kuu laaban adigoo u diyaariya casho la yaqaan. waasuge iyo wiilkiisii waxaa u socda iswaraysi. muuse ayaa looga warramayaa dhibaatooyinka miyiga oo dad iyo duunyaba haysta. salaadii maqrib ayaa la gaaray. markaasuu waasuge inta weysaystay oo waajibkiisii gutay warkii halkiisii ka bilaabay. in yar kadibna waxay mariya labadii nin ku tiri, kaalaya miiska aan cashaynee. waa markii uu kashifmay is-afgaran waagii oo duqii yidhi, anigoo aan bun helin ma taabanayo cunto kale. markaasay inta reer muuse isdhugteen oo duqii ka fogaadeen ka wada hadleen is-afgaran waaga meesha ka dhacay. waxaa kaloo ka sii daraa markuu waasuge ogaaday inayan mariya aqoon u lahayn sida bunsharuurka loo dubo. taasuna waxay kashifantay markii dariska laga doonay agabtii bunsharuurka iyo qof dubi yaqaan intaba. waasuge way u caddaatay inayan reer muuse ka suuro gelin suuryada uu sugaya iyo sida uu u doonayo. dhowr ayaamood kadib ayuu waasuge habeen jimco ah fiidhoraadkii wuxuu dikri ka maqlay masaajid ku dhowaa. wuxuu ka tirsan yahay dariiqada axmediyada. markaasuu inta aaday goor dambe ka soo laabtay. haddaba
markuu aqalkii ku soo laabtay muxuu la kulmay? jawaabta waxaa kuu sida sheekada Waasuge iyo Warsame qaybteeda 5 iyo 7 soo aadan hadduu eebba idmo.